stationka markaan soo geliyay waxa iyada kelmadii gal hortay halka maxay noo soo gelisay anna waxa maxaa xanuunka igu rid saa markaas gacan bay ku jirtaa moogta ma aniga way naxday way isbedeshay si aad bay u soo bedeshay waxyaabo aan ka soo dhaafin way jirtaa markii aan xanuun baa halka iga haya laabta aan oran jiray way ilmeyn jirtay maxaa yeelay markii hore way guursanaysay oo aniga aan guursanayo ismayl ahayn macnaha waxyaabo ku jiray baa iska bedelay inay qalad ku jirtay dareensaneed gabadhaas raas waxaan oran jiray ma malkumeedkayga lagu sheegay maxaa la ilmeynaysaa meeshii markaan aan gudaha soo geliyey oobiga waxaa la rabaa wax lagu geliyo qofka laiskama xir karo qofka dee maxaad ku dacweynaysaa bali anigu marka AJF iyo AIDS midna ma kala qaana war AIDS bay nagu riday gabadhaan xiraan qabta kii qalinka hayaaba intuu tuurayba ordo ninkii rabay inuu wax qoro shiiro maada kugu dhaca dadku way garanayaan sarkaal inta badan aad meesha looga yaqaan bana askartii qaban lahaydna nin walba faroo ka taagay cabaar ka bacdi baa rag u yeeray warkaalay eriyo waa la yimid oobiga la geliyay magaalada way iga sii horeysay marka waxa koowaad bayd dadkii aniga markii hore xanuunka iga baareen waxay yiraahdeen adaad u doorlay inaad qarsatid iyo inaad faafiso aday ku talaa ana marka waxaan ku yiri anigu marnaba wax la yaa wax qaran leeyahay oo qaranayo ma jiraan laba maadaama uu qaran anigu tuutaan u xirnaa wax kasta oo dhacay oo dalka ummadda Soomaaliyeed oo dhan wixii xaqiiqada ka imaanayo anu tuutaan u xirnaa mid kale way jirtaayo waxaan anu qalad iguma imaan guur buu igu yimid markii hore ayaan go'aanka anigu sii qaatay marka arintaas ay ahayd waxa loo yeeray dad ayada baara waxa aniga laga helay laakiin iyada laga ma helin wali moogta oo markaas iyadu ma qirsanayn inay xanuunkan qabto ma qirsano waxa loo yeeray dad ayada baara iyadoo station ku jirta waxa loo yeeray dhaqaatiir way baareen waa laga helay CID iyo dadkii wareysanayay baa u yimid waxay tiri anigu ma qabin asaga igu riday tiri marka hore kelmadda markay tiri ayaa waxaan iri war anigu waxaan arkay anu meel kalena ma marin de meel kale uu iga iman karo waa suurtagal gabadha warkeeda laakiin waxaan arkaan in sheegaya marqaati ah boorsadeeda kaniin baa ka buuxaan ana waligay arag way diiday marka gurigeena sheegtay xaafadii ay ku degtay maadaama ay magaalada iga tagtay guriga ku degtay lambarkeedii ayaa qofka u dambeeyay ay wacdo baan wacnaa lambarka magaranaysa ha anay la joogtaa gabadhaan ay la nooshay gabadhii marka waxaan iri boorsadeeda ma taala ha si aniga marka aan shaki loo gelin oo aan loo oran waxa saasay tahay waxaan u diray dad askar iyo dhaqaatiir isku jirto baan iri boorsada soo qaaday gibgeeda waa la soo qaaday waxa la keenay saldhiga way joogan marka ragii maalintaas wali waxba laga duubay laakiin anigu macnaha waan diiday markaas in gabadhaas ayada lagu xadgudbo boorsadeeda ayada fud gacanteeda ku furtay sakaniin baalku wuxuu leeyahay laba nooc weeye nooc waxa jira habeenkii kaliya la laqo qofku markuu age ugu horeeyaa age labaad markuu galana habeenkii iyo maalintii habeenkii iyo subaxdii baa la laqaa nooca marka habeenkii maalintii la laqo bay iyada cunaysa oo darajada koowaad ka gudubtay kii labaad darajada koowaad kii labaad bay maraysa waa qofka gogooye u badanta inta badan waxa dhacday maxaa kuu kala falay inaad inkirtid kelmad waxay tiraan de waa is adkeynayay adigu warkii oo dhamaystiran waa laga duubay goormo kugu dhacaalay waqtigaas ma ya ogaa oo dadkeena ehelka ya ogaa gabar walaashay kaliya ayaa mas'uuliga ahayd bitir og oo magaaladaas ku nool in magaalada inaan sheego mar rabo oo dadka aan wacyi gelinay kamid yihiin dadka magaalada lafteeda degan wixii waa ugu dhaceen moogta wax culaad aan u hayana ma jirto waa magaalo dadka Soomaaliya kamid ah waxa dhacday aniga waxaan la hadlay aabaheed gabadha aabaheed baan la hadlay waxaan ku yiri xanuunkaasi gabadha la nooshay ana xanuunka baa igu dhacay maalintii ugu horeysay adaan ku weydiistay gabadhaada waxaan ugu tiri geel abaar waqtigaas jilaal aad adag buu ahaa
ninkii garanayaa garanaya waqtigaas geel etoobiya loo sii wado oo halkaasoo maarata xoogaa ka da-een maarata baan sii wadaaya dee allah isku kin qayr u yiri ma ogeyn bi adeer laakiin wuxuu yidhi adeer hadday gabadheedi sidaas yeeshay warka waan helay inay qabtay garawana ku xidhan tahay laba maado adaa u door leh dee inaad waajibkaada ka gudanaysid gacantaaday ku jirtaay iyo inaad magtaada ku siiyo yidhi waajibkaa ka gudanayso aad tooganaysid waa tooganayso midhaa ka wadaa adig ma soo doona hawdha ku qaata isaga marka adeer waxaan ku yidhi haddaadna ogeyn waxna kulama jiraan anigu magna ma rabo xoolo kalena ma rabo saacaddan laga bilaabo gabadhana cafis bay iga tahay laakiin sidii waddada aan usoo marin lahayn keliyaan falankeeda qabanaya waxaa jirtay marka gabadha waxaa u yimid oo wax ka qoray si ay diida maxkamadda si hawshaas maaragtay waxa laysku raacay oo inta badan maxkamadda toos looma geyn gabadha laakiin waxaa laysku raacay qofka noocaas oo kale ah oo sidaa yeelaya oo isagoo xanuunkii qaba noocaa samaynaya oo qof dilow la mid yahay hala toogto marka maxkamaddii iyo c i d dii ani maadaama waxba iga soo go-ay waxaan is idhi gabadhan xaaskaadays noqotay amarkaana waa dhacay mana soo noqonayo kow wax kalena way jiraan oo dee wax markaa culays oo isaaran maadaama ilaahay xaas kale ii fiyoobeeyey aan caafimaad ahay carruurteyda caafimaad yihiin sidii kaleo aniga aan waxa loo dabaalan karaa loo dabaasha lakin gabadhan inaan cafi xag ilahay ka cafiya aan waxba loo raacan bes warqad baan qoray saldhigana waa dhigay c i d dana waa siiyey maxkamaddana waa siiyey adigu rag igula telteliya way jiraan waxyaabo kale oo hadda aanan ka sheekeyn karin dad kale oo soo weeraray gabadha way jireen oo faamilka ah oo dumar u badan yidhi oo inay dilaan rabay anigu marka waxaan sameeyey gabadhii gaari baan ku daray ilaa iyo muddaan la socday si ay magaalada waddanka uga baxdaba markaan gaariga ku daray intay meesha ku jirto hawshaan dhamaynayana biilkeeda iyo waxeedana meeshaan ugu geyn jiray horta anigu sidaas horta igu dhaca marka aan kugu sii daran waan gudagala wixii marka arrintii baan sii gudagala waxa weeye dawadii baan u qaataa waad dareemaysaa nin buko boqol kuu talisa waxaa la yihahdaa xagga lagaaga duceeyey xagga saas ahayd iyo kana saas ahayd iyo caano geel cab iyo kahadi geel cab iyo hawsha waa badanaysaa mogta horta qof ka biskooday ma haysaan baan idhahdaa dad badan baa waxay yidhahdaan markay cayilaan xoogaa dawada cunaan bay anigu waa iga baxa ninkan waan kusoo baaraya maan dhaha waxaad ku biskootay baan rabaa markii arrimahaas ay kaa xalismeen kadib maxaa go-aan ah oo nafsiyan ah oo aad qaadatay adiga waxaan horta go-aan qaatay inaan shaqada ka tago dhinac kale inaan u rogo shaqada aan ka tago dee diinta barashadeeda iyo hawsha iyo inaan halkaa iska aado laakiin aanan arrintan ciidamanimada iska daayo halkaa ka baxo taliyihii booliiska markaa joogay iyo saraakiishii markaa joogtay ama qayb ha ahaato ama cid kalaba ha noqotee waxay ugula taliyeen inaanan shaqada ka tegin haddaad tala naga maqlayso annaga taladeeda qaadanaysana ka tegi misid baale shaqadaada joog weliba taliyaha booliiska waa magacaabaya ereg nin la yihahdo ahaa wuxuu yidhi aniga lacag hadda aan ku siiyo jeebka kaa siina ma hayo kama tegi kadhi shaqadaada waad haynaysaa inta anigu aan joogana waad joogaysaa kuwii ka dambeeyeyna sidoo kale yahay iyo kuwa hadda joogaba shaqadii sidii baan u haystaa meeshii saldhigii aan u joogaa uga shaqeeya haddaan waxa leeyahay haddaan wax hagaajiyaba marka waxaa jiray aniga markaa talooyinkai ugu dhashay waxay ahaayeen de waa lagu talinayaa dad baa kugu imaanayo kuwaa miyi kaaga imaanayo kuwa magaalo kaaga imaanayo waxaa la yihahdaa idaha hilibkoodaa la cunaa xaggaa laga laabtaa marka anigu wixi o dhan intaan joojiyey baan dawadaysi toos u qaata waxa koowaad oon samey taas ahayd waxa labaadna ilaahay ii keenay baa isku xiro qof kasta haddaan arka hadda laba nin gabar iyo wiil wada socdo waxaan idhahdaa war horta isbaara intiina meel aadin
macnaha su-aalaha koowaad aan sameeyey maxaa dhacay sanad xanuunkaas aan la noolay dadku way yaabaan waxay yidhahdeen ninkaan buuran oo noocaana waa beentiis wey taasaan sameeyey wacyigelintaas iyo inaan ilaah isku xiro marka labaad waa soo xajiyey xajkii baan tegey sanadkii dhawaa sanadka haddaan sanad ka horreeyey 2000 iyo maxaan ku rahdaa 18 marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin intii ka dambeysay hal maraan isbaaray baaritaankayga waxaa la yidhahdaa wax intaa ka yar kolley dee hadda ma haye istaatidii markay sameeyaa waa wax daciifa ay ugu jiraan hay wuu nusqaamo wuu yaraada waxaa keenayana wax stress iguma jiraan inaan qof kale caawiyo oo anigan aan maaragtay wacyigelin iyo u sameeyo ma ahane wax aniga nafsiyan marka dadka markay wareystaan waxaan idhahdaa war xanuun ka warreeya markii hore aan xanuunsanaa baan idhahdaa hadda macnaha intuuna xanuunka igu dhicin iyo hadda markii hore aan xanuunsanaa ee hadda waa caafimaad qabaa maxaa yeelay wax badan baa ii siyaaday waxaa diinta xaggeeda salaada soonka aad baan maaragtay halkaa ugu fiicnaa caqabado ma jiraan intaad hawshan aad ku jirtay wax caqabado ah oo aad maxaa kamid ah way jiraan 3 caqabadood baan horta garanayaa